وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي بان كما هدنينا إنك سوى قيب قلي صلاة مغرب إن جمع ماركتاني أن لا تكنوا كذب إلهي وحنا إدمي إن المساجد كنا قانو وانكو اعتكافنا إنكو إلهي تبارك وتعالى كلي دون يماركتاني الرذيهيس meel lagu nagaado waxa ugu khayr badan waa masaajida meel la fadhiisto lagu ictikaafo oo fadhigo kaliya ajar laga helo waa masaajida weeyaan dad iska fadhiisatay masaajidkaas oo xataa xadiis aan dhageysan oo quraan aan akhrisan oo dhikri aan sameeynin kaliya hadad masjidka waysa qabaad ku dhex fadhiisato ayaa ilaahay kugu naxariisanaya oo ilaahay kugu dambe dhaaf laana masaajida ilaahay baa iska cid kale ma leh wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada masaajida waxa loo dhisay ilaahay jalla wa ala in lagu weyneeyo oo ilaahay tabaaraka wa taala lagu caabudo ilaahay lagu bariyo maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin masaajidka dhexdiisa baylaha ka luntay ka raadinaya markaa buu nabigu ilaahay kuma soo celiyo buu ku yiri hadaad aragtaan oo aragtaan in masaajidka dhexdiisa wax ku iibsanaya ama wax ku iibinaya waxaad ku tiraadaan ilaahay kuma barakeeyo dhahada hadaad aragtaan masjidka dhexdeeda qof baylaha duuya ka yoohinayana asagana waxaad ku tiraadaan buu nabigu ilaahay kuma soo celiyo dhahada inma buniyat almasajidu lima buniyat laha masaajida waxa loo dhisay cibaadada Allah baa loo dhisay masaajida in ilaahay lagu weyneeyo oo ilaahay lagu bariyo oo ilaahay lagu caabudo oo ilaahay loogu dhawaado masaajidka loo dhisay meesha dadka muslimiintu rabbigooga ay kaga xidhmaan waa masaajidka qofka masjidka cilaaqa aan la lahayn waa daliil waxay daliil u tahay qofkaas ilaahay cilaaqa lama leh muslimku halku ilaahaysa kaga xidhmo waa masaajidka todobada ilaahay jalla wa ala maalinka qiyaamaha uu hadhayn doono maalinta harka alla mooyaan har kale uu san jirinna waxa kamida buu nabigu calayhi salaatu wasalaam warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi nin qalbigiisu mar walba masaajidka ku xidhan yahay masjidka cilaaqa la leh ayaa kamida buu nabigu sallallahu alayhi wasallam masaajidkuna waa meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa halka ummadda uu ku tarbiyeeyay weeyaan waa halka saxaabadiisa cilmiga uu ku baray weeyaan wufuuda magaalada Madiina imanaysa nabiga la kulankiisa u imanaysa waa meesha nabigeenu ku soo dhaweynay oo ku istiqbaalay weeyaan ahadiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu Madiinatul Munawwara uu yimiday laba amal buu nabigu markiiba Madiina ka dhaqaajiyay bana almasjid masaajid buu nabigu markiiba uu dhiso ummadda u calaamadeeyay amalka labaad uu nabigu Madiina markuu yimid uu qabtayna waxa kamid ahayd akha bayna almuhaajiriin wal ansar ansar iyo muhaajiriin buu nabigu walaalo uu ka dhigay wuxuuna ku walaaleeyay ala asaas iimaan iimaan buu ku walaaleeyay ukhuwada wuxuu nabigu asaas uga dhigay islaamnimada ayuu nabigu ukhuwada asaas uga dhigay iimaanka ayuu nabigu maaragtaan asaas uga dhigay ukhuwada islaamka masaajidka markaas wuxuu noqday meesha ummadda nabigu ku tarbiyadeeyo hadii diin la baraayana qofka masjidka lagu barayay hadii wufuud nabigu uu qaabilayna masjidku ku qaabilayay haduu nabigu ciidamo uu darayna masjidku ka daraayay haduu maaragtaan jamaacada diinta ilaahay fidinaya uu darayna masjidku ka daraayay hadii nabigu calayhi salaatu wasalaam hadii ummadda uu la tashanayna masjidka dhexdeedu nabigu kula tashanayay salaada cishaa buu nabigu ka baxay uu istaagay wuxuu yiri salaada ilaahay baan nasiyo nagu farad yeelay laakiin sidaan ummadda salaada aan ugu yeedhi lahayn baa naga rabaa ka tala bixiya buu rasuulku yiri danta ummadoo dhan nabigu masjid buu ka bilaabay
sideen ummadda salaada xaggeega aan ugu yeedhnaa waa talo waa tashi waa ta ilaa imika ummad bay fahmi leedahay war diintan tashi bay u baahan tahay diintan dhagaysi keliya uma baahno diintan waxay u baahan tahay caaqilka iyo caalimka ka yar iyo ka weyn faqiir iyo qani madaxdeennii mijaheenu intoon masaajida ku kulanno salaad waan ku kulannaa alxamdu lilah laakiin waxaa la rabaa inaan ku kulanno diinta tashigeega inaan ku kulanno sidaan ummadda salaada xaggeega ugu yeedhnaa salaada nebiga isagaa loo soo dhiibay halka axkaamta kale oo dhanna nebiga arlada isagoo jooga loogu soo dhiibay jibriil calayhi salaam soonka markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loo soo dhiibay zakada markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loogu soo dhiibay xajka markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loogu soo dhiibay alcibaadaat anwaac alcibaadaat oo dhan markii nebiga iyo ummaddiisa lagu farad yeelayey jibriil baa nebiga loogu soo dhiibo arlada ugu keenayey laakiin salaada markay noqotay salaada nebi maxamed baa intuu arlada laga qaaday oo la dheelmiyey oo haddana micraaj loo bilaabay leylat alisra walmicraaj ayuu nebigu ilaahay la soo munaajooday dadna shantaas salaadood baa nebiga loo soo dhiibay shantaas salaadood laakiin habkii ummadda salaada loogu yeedhaayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaa loo dhaafay inay ka fikirtay ka tashato markaa nin saxaabiya ayaa yidhi markaas ani waxaa ila quman buhi nebi allow inaan bir xadiida aan ku dhifano markaas qawda markii la maqlo dadku way maqlayaan dhawaaqa markaa birta lala dhacayo deedna masjidkay imanayaan markaabuu nebigu yihi taa nasaarada ayaa isticmaasho waa jarsi weeyaan ee tala kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin kalea yidhi anigana waxaa ila quman inaan dab shidno oo dabkaa marka la arkay qiiqiisii holociisa ayay muslimiintu garanayaan salaadii wakhtigeegi inuu gaadhay deedna salaaday imanayaan taana qolada cadcaadiya dabka caabuda isticmaashay tala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam deedna markaa haddana nin kalea yidhi anigana waxay ila tahay booq in la afuufa fuudhin taana yahuudda isticmaasho waa caadada yahuude tu kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam suuradii habeenkii markay muddo dheer ay socotay buu nebigu yidhi arrinkaasi caawa haynagu barye subaxda haynoo haata buu rasuulku yidhi sidaan ummadda masaajidka ugu soo xidhnaa sidaan ummadda aan salaada ugu soo xidhnaa siday ummaddan ilaahay ugu xidhantaa ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kala tashanaya salaada waa salaada awqaadeeda iyo kayfiyadeeda iyo inta rakacadood ay tahay iyo hay-adda salaada iyo awqaadda la tukan kullahaa waa waxyi weeyaan waa waxyi waa cibaado weeyaan nebiga waa loo waxyooday laakiin kayfiyaddii ummaddu salaada loogu yeedhi lahaa waxaa loo dhaafay nebiga iyo ummaddiisu inay ka tashato halkaa maxaad ka fahmaysaa sidii masaajidda shaqada loo dhisay bay kamid tahay shuuradu in dadka muslimiintu danta ummadda talada ummadda maxaa ummadda u dana diintooda maxaa u dana adduunyadooda maxaa u dana noloshooda khaaska maxaa u dana noloshooda caamka maxaa u dana inay ummaddu arrinkaa masaajidda dhexdeeda ay kaga tashato waa sharci ilaahay noo soo dejiye weeyaan waa sunna nabawiya laakiin mahjuuro maanta laga hijroodo ummaddu ka indiraastay weeyaan salaadii subax markii laga baxay buu nebigu yihi ayaa xalay toola arkay buu yihi riyo shuuradii baa socota taladii baa socota tashigii diintaa socda nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busodada ka mid ahaa ayaa yidhi xalay toola anoo dhinacna kasii lulanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yihi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo erayadiina waan xasuusanahay nebi allow markaabuu nebigu yihi erayadii ma xasuusan tahay haa bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayey ninkii aadaankii buu sii daayey allahu akbar allahu akbar markaasuu yidhi cumar bnu khadaab aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a ay isku mid bay yidhahdeen annaguna xalay riyadaa waan ku riyoonnay markaabuu nebigu yidhi adinkeennii waa kaase laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi shuuraa ka soconaysay masjidka nabigeenna tashi xataa siirada waxaa ku taalla fi sunan gaalada markii lasoo qabta qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray masjidka ku dhex xidha hamaamata bnu athal baa ka mid ah fii saxiix albukhaari raximah llah sariyuu nebigu diray markaasay ninkaas soo qabteen markaasaa ninkii nebiga loo keenay maad garanaysaa ninkan maya ma garanayno waa hamaamata bnu athal waa malika alyamaama halkaa iigu xidha buri masjidka dhexdeeda igu dhex xidha masaajidkii waa jeel markaasaa halkiiba lagu dhex xidhay markaabuu nebigu reerihiisii buu tegey cuntuu uga soo qaaday
hashi irmaanida nabiga noo maalaya caanaheegina uga soo qaaday markaasuu nabigu halkii ugu keenay oo hawaa oo nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyey oo caanihiina kabisiyey buu ku yidhi yaa Thamaama iska soo islaam markaasuu yidhi ma islaamayo buu yidhi in taqtul daa damin wa in tuncim calaa shaakirin wa in turiidu almaala fasal maa shi'ta buu ka yidhi yaa Muxamed haddaad aniga idishid buu ka yidhi nin dhiiggiisa dhulka u dhacaya ma yihi buu yidhi tol baa iga dambeeya buu yidhi haddaad igalladaysatidna maantood xariga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buu yidhi anugu waan abaal gudi haddaad maal iyo adduunyo doonaysana sheega waxaad doonta waan ku siinaya laakiin xariga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi may kuma sii daynayna buu ka yidhi habeenkiibuu halkii ku baryey cashadiibuu nebigu haddana u keenay hashii nebigu caanaha uu ka maalayey isaga looga maalayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisi markaasuu ku celiyey haddana u iska islaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku cashaynayana intuu soo qaalibuu hordhigayaa markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegayaa uu leeyahay soo islaam muxuu nebigu ninkaa la maagan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuhrad ka dooni maayo waxa keliya ninka nebigu uu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaamo markaasuu ku celiyay haddana yaa Muxamed haddaad idishid dhiiggaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buu yidhi haddaad igalladaysatidna maanta ood isii daysid ood xarigga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuhi anigu ma ciyaar nin kaftamaya ma ihi buu yidhi abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxaad doonaysa ii weydiiso madax furasho oo waan ku siinaya xarigga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu dee waa hagaag aniguna ma islaamaya buu yidhi haddana maalintii saddexaad sidii sile buu nabigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkiibuu u keenay caanihiibuu u keenay markaasuu yidhi yaa Thamaama iska soo islaam sidii unbuu isaguna ku jawaabay markaabuu nabigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisu waxba inoo tari maayo xadhigga ka sii daaya haska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayey magaaladii madiinuu ka baxay beerihii beer ka mida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nabigeenna uu ku soo noqday isaga oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu usalli rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam markaa buuri yaa rasuul allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadan diimaha ugu jecelahay dalkaagaan adduunyada ugu necbaa magaaladaa madiine ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wejigaagaan wejiyada ugu necbaa maanta laga bilaabaana dadka ilaahay abuuray adaan kugu jecelahay buu ka yidhi maxaa bedelay ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku dhex xidhnaa masaajidku waa meesha raxmadda ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'igtu ay imanayso waa meesha muslimiintu ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo dambi dhaafo weeyaan waa meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu u doortay inuu ummaddiisa uu ku tarbiyadeeyo haddii dad diin la barayana cahdigii nabigeenna masaajidka nabigeenu ku bari jiray haddii dad la islaaminayana masjidkaa lagu islaaminayey haddii jamaaco la dirayay masjid buu nabigu ka diraayey haddii wafuud nabigu qaabilayay masjid buu ku qaabilayey laana masaajidku waa aqalka ilaahay meel cid kale loo nisbaynaya ma aha fadhiga aad fadhiisatay baad ka faa'iidaysan iska daa wacdiganba wacdiga wadaadadu ay sheegayaan xataa haddaad waxba ka fahmi weydo fadhiga masjidka aad fadhidaa ilaahay kugu naxariisan laakiin dadkeena maxaa fadhiga masjidka ku adkeeyay maanta masaajidii waa mahjuura waa laga hijrooday halkee camiran maqaaxyaha camiran maanta majaalistii qaadkaa camiran meheradihii adduunyada ayaa camiran 24 saaca adduunyada meelaheegu waa macmuur laakiin masaajidii raxmaddu ku soo degaysana waa mahjuur maanta axabu lbilaadi ila allahi almasaajid dhulka ilaahay meeluhu ugu jeclaa waa masaajida meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka ordaysaa maanta oo nafteennu ay ka didaysaa meelihii ilaahay arlada ugu necbaana
nafteenni maanta way ku xasilaysaa. maxaa bedelay ninkaas? saddexdaa maalmood masaajidkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam khayrkii uu ka maqlaayey, khayrkii uu ka arkaayey, acmaashii masjidka nabigeenna saxaabadu ay ka qabanayeen ayaa noloshiisa ilahay ninkaa ku bedelay. markaa buuri yaa rasuul allah, cimraan u socdee maan u sii socdaa mise waan iska noqdaa? markaa buu nebigu maya orodoo cimrayso. laakiin wuxuu nebigu markaa uu sheegay arkaantii cumradu uu sheegay. ilaa cimrada iyo xajku waa soo jireen zaman jaahiligii, carabtu xataa way xajin jireen, wayna cimraysan jireen. markaa buu nebigu u sheegay arkaantii cumrada, sidaa iyo sidaa iyo sidaa. markaasuu maka soo galay. waxaa la yidhi waa saxaabiga ugu horeysay magaalada maka soo gala isagoo mulabiya, isagoo le labayk allahuma labayk, labayka laa shariika laka labayk, ina alxamda walnicmata laka walmulku laa shariika laka. waa saxaabigii ugu horeysay ee talbiyadda islaamka la yimiday, tawxiidka la yimiday ee magaalada maka soo galay buu ahaa Thamaama radia allahu canhu. quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay. waxay ku yidhaahdeen waxaana soo gaadhay Thamaamaw inaad diinteennii aad ka baxdeen, maxaa ka jira? markaasuu yidhi marka horeba diin maan haysane, diintii nebi maxamed uu la yimiday baan raacay buu anugu salaamada. dakhaltu diina muxamed buu ka yidhi, diintii nebi maxamed uu la yimiday ee islaamka ilaahay noogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaaba aan ka mid ahay ehelkayga buu yidhi. taad sheeganaysaana horaan uga baxayba. markuu cimraystay oo lagu dhici waayey, limaada laana ninkani waa boqor. xintada laga cuno, xinta shaciirka laga cuno dalkiisu ka baxa. quraysh way taqaanaa markaas, waxay is idhahdeen ninkaa haynagu taabanina, haddaad nagu taabataan dhaqaaluhu naga jari. mar alle markuu cimradii dhammaystay isaga u yimid oo ku yidhi qurayshay dhegaysta, maanta laga bilaabaa xinta xabban xinto shaciira dalkayga inaga imani mayso ilaa nebi maxamed oo amar isiiyo u sii daa igu yidhahda mooyaane, imaa ininkuu diinta islaamka soo gala mooyaane, labadaa waxba kama dhexeeyaan buu yidhi. waa ninkii ugu horreeyey baa la yidhi islaamnimada daraaddeed quraysh u saaray xisaar cunaqabatayn. iminka cunaqabataynta ayaa la saara, yaa saartaa islaamka la saara. maxaa lagu saarayaa? laana adduunyadii baad jeclaatay, adduunyadii baad weynaysay, waxay gaaladu caabudayeen baad adiguna la caabuday, markaa way kaa adag yihiin ogow, khadkoogii baad gashay. markaasaa markii uu dalkiisii ku noqdayba qoomkiisi way wada islaameen. markaasuu yidhi magaaladii maka shaciir ha u dirina buu yidhi, xinto ha u dirina buu ka yidhi, ka joojiya. mar allihii markii ay maqleen reer maka ninkii uu ka joojiyey raashinkii, badeecadii baad ascaarteedii baa kacday. markaasay qurayshi nebiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin yaa muxamed, yaa muxamed, diintaadii ma waxay ku faraysaa inaad raximkaaga aada goysid ood gaajo ku dishid? markaa buu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi Thamaama binu afaal buu nebigu warqaddu qoro, wuxuu ku yidhi tolka ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sii daa buu ka yidhi, raashinka u sii daa. masaajidku saasuu wax u bedelaa. umatarabad fi lmasjid, nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ragga taariikhdooda maanta caalamkao dhan laga wareeray ee la leeyahay hadday raggaasi adduunyada mar labaad iman lahaayeen mashkiladda caalamka taallaya kaa xalin lahaa bay yidhahdeen gaaladii lalahaa waa indheer garato, waa khubara lagu sheegayey. warkoodu wuxuu ku soo ururay inay yidhaahdaan cumar binu khadaab ninka la yidhaha hadduu caalamka maanta iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isaga unba xallin kari lahaa. markay akhristeen siiradii cumar, xaggay ka soo baxeen raggaasi? ayna takharajuu? wallahi cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina madaaris qur-aanka laga bartana may lahayn, macaahidna may lahayn, jaamacadana may lahayn. meesha ay ummadda wax ka baratay masaajid buu ahaa. masaajid meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku tarbiyeeyeyna masjidun ahayd, masjid.
إمامكي مسلمين أميركي مسلمين في علم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخر أي أنتو مسجدك نبينا وكبحوا أي سوغ أنتو تقول رنجري ورواد خسارتين والخير باين دافع محانا دافع وحاو رنجري ورد حالك النبي الله قيبين أن أرضو قيبتنا كسوقات ميراث محمد يا بحالك النبي مسجدك الله قيب سنة يا مركز سيداتك قار لين إلا عقل قيب سنة يوم لأنه هو السوية عين مساجد كيبا يمادين واحد يقول الله قيبين يا مركي أركي وايين أي أبا هريرة ولي هالكي تاغن والجولات كي الزيارات كي السمين أي كوير هذا يا أبا هريرة مساجد كي وان تجني واحد حلو الله قيبين يا منو أركي مركز سوري مساجد كي ما تكتينها وان تجني وأحد من مسجدك كما تركين ما مسجدك الددوي جوجين بدك مسجدك جوجين ما حي سميني ينبلي شيء قبولي والله قرآن بآخر سنيين قار صلاة دي تكنيين قار إلهي دي بريين قار علمي دي برنيين مركب رواد خسارة بولي ذاك ميراث محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام دحالك أمدي سوغت لي وشغلها مسكيتة قصوارك تنبولي إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما أنك وعدان أركي أنبياء نحب رسولك يري دينار يا درهم لأنك ما دحلب رسولك يري أنك وحال أنك دحلب نبي علمك لك دحلب نبي علمك حريرك إلهي بن آدم كدح يا نبي لك دحلب نبي العقل لك دحلب قرآنكم مشيقين نبي وحال لك دحلب إلهي معرفة سال لك دحلب دين تايا لك دحلب دريك آخر يا لك دحلا الدنيا آخر وحي قف كوها جاي أي النبي ذا لك دحلا أي النبي ذا لك دحلا بركات النبي يقول لي أنك وهذا أنبياء دي أنا هاي دينار درهم لما دحلو وحال أنك دحلا برسولك ما رتاني علم نك علمك قاتنا نصيب وين بوقاته برسولك فمن أخذه بحظ وافر بالنبي يقول أنبياء علمك لغا دحلا ومحي علاقة مع الله بلغا دحلا معلم بالنبي عليه الصلاة والسلام مسكيت كسوق علي وحوارك نرر بادية وصلاة كناية وصلاة دي نحن دينا كدو عيسناية واشتاق النبي مركز دعاء دي بولا قيستي ودعاء عجيبة دعاء بقول قسقاشن وإلهي أمانتيسا يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال إلى آخر كيغا مركب النبي يقول أبو موسى الأشعري بو يروح كيري نكا دعاء مركو دما يكن بو كيدي مركب الله يرى نك النبي قال دونا يا نمر مرحبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمه مركا الله سوق قاده وحوله مركا uu qaybinayay ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu nabigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhibay ka warama saas uu qalbay uu farxay markaa buu nabigu ku yiri lacagta sababta aan ku siiyay maad garan buu ka yiri markaas uu ha maxaad u malaynaa ku siiyay tolnimadii siisay buu markaa buu nabigu ku yiri waa runta رحمكم حق وإليه وحلسوا سيئ لكن لعقتن وجددا كوسي وحويان بحسن ثنائك على الله سداد هدرت الإله يعدو أماني سي أي كفر حب رسولك تادرت بنكوسي يقولي سداد الله هو بريس سداد الله هو أماني سي وايو مقصود كالنبي ذا بيد الله كان أها إني بني آدم كإله كحران markuu arkay nabigu shaqadiisii oo socota oo ku farxay nabigu kaleey salaatu wasalaam dana uu siiyay تعلق إلهي dadku ay leeyihiin baa nabiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno hatta fi siirata Umar waxa ku taala ghanimadii ayuu maalmaha kamid ah Umar dul fadhiistay markaasuu u qaybinayay saxaabada markaasuu arkay inay yaro gacan go'an markaasuu yiri gacantan maxaa ka gooyay buulo wuxuu qaswadii halkaas ahay
ayaa dhaawacan la ii geystay buu ku dhaawacmay markaasuu lacagtiibuu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanayaa markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kaluu haddana siiyaa markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhifta halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiyaa mar dambe cumar marka uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yihi cumar baa war ninkii meesha joogay meye waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhayo uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuri manin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeyga iyo koryeelkeyga iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buri wax meesha yaalloo dhan ba dadku inay ilaahay jalla wacalaa ku xidhmaan baa muhiimaddu ay tahay jannada dhan ee adduunyaduna waa ilaahay macrifadiisa imaam Ghazali raximahullah ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa ilaahay garo bas sirta nolosha raadinayaa bay koran Soomaalidu imika xageed ka raadin dhoof xageed ka raadin lacag baan sameeynaya lacag sirta noloshu raggii fahmay baa kuu sheegaya dhagayso imaam Ghazali raximahullah wuxuu yidhi jannada adduunyada ninkii doonayo waa ilaahay macrifadiisa hel jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa bas laakiin nabigu lahaa sallallahu alayhi wasallam ahla aljannahu markay jannada galaan ilaahay baa ku oran doona turiiduuna shay'an aziidukum mar rabtaan shay kale oo jannada ahay wax kale oo jannada ahayn oo aan inigu daro markaas ahlu jannahu oranayaan alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna aljannata wa tunajjina min an-nar ya rabbi miyad wajiyashayda noo cadaynin oo naartaadu naga badbaadin oo jannadaadina aadna gelinin ma wax jannada ka fadli badan baa noo haray fayakshifu alxijaab nabigu ilaahay wuxuu iska qaadayaa xijaabka fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim nabigu yiri ahla aljannaha lama siinin waxaa looga kalgacayla badan yahay ilaahay jalla wa ala daawashadiisa marka ilaahay daatadiisa ay arkaan ilaahay jamaalkiisa jalla wa ala iyo kamaalkiisa marka jannada dhexdeeda ku arkaan jannadii ay ku jireen iyo xuraantii way halmaamayaanba marka jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa noloshan adduunyada sirteedu waa maxay ilaahay garo macnaheedu waa maxay maqsuudkii ujeedadii adduunyada lagu keenay garo hadafka lagu keenay garo hadafka lagu keenay waa maxay ilaahay caabud ilaahay bari ilaahay baahidaada u sheego ilaahay weydiiso cid kale waxba ha weydiisan idaa sa'alta fas'al illaaha wa idaa ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay lam yanfa'uka illa bishay qad katabahu Allahu laka haddaad weydiisan buu nabigu leeyahay ilaahay wax weydiiso احفظ الله يحفظك إلهي إلهي أمر كيسا هذا إلهي باكو إلهي المركز إلهي هدان إلهي سيد أمر كيسا إلهي باكو إلهي سنو دونو كو إلهي ماشو دونو كو إلهي إبراهيم عليه السلام دب دحيدا لغو إلهي موسى عليه السلام قصر فرعون ayaa lagu dhex ilaaliyay Yunus alayhi salam caloosha kalluunka dhexdeeda lagu ilaaliyay Muhammad alayhi salam qaar dadka dhexdeeda lagu ilaaliyay Quraanka akhriso Quraanku waa bayaanka Ilaahay bayaanka makhluuqa maaha bayaanka Ilaahay dhageyso bayaan hada bayaanun linnas Ilaahay baa sidaa ku leh haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ayaa ku ilaalin yaa ku ilaalin ilaahay siduu kugu ilaalin siduu doono meeshuu doono xilliguu doono
ilaahay amarkiisa ilaali bas. salaadu waa amarka ilaahay, soonku waa amarka ilaahay, islaamnimadu waa amarka ilaahay. amarka ilaahay uu ku amray adiga ilaali bas. meel kastoo joogto ilaahay amarkiisa ku ilaali, maaha masjidka dhexdeeda keliya. meel kastoo joogto noloshoo dhan baa la rabaa ilahay inaad kaga cabsoto. dhallinyarnimadaada ilaahay kaga cabso, oo da'weynada ilaahay kaga cabsado, oo faqriga ilaahay kaga cabso, oo qinada ilaahay kaga cabso, oo safarkaaga ilaahay kaga cabso, oo xadarkaaga ilaahay kaga cabso, oo mujtamaca dhexdeeda ilaahay kaga cabso, oo khalwadaada ilaahay kaga cabso. markaad keligaa tahay ilaahay ka cabso, mas-uuliyadda ilaahay kaga cabso. haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ilaahay baa ku ilaalin. 40ka nawawiga jardani raximahullah sharxiisa wuxuu ku sheegay qiso cajiiba xadiiskaas. raabica radia allahu canha habeen iyadoo tukanaysa ayuu nin tuuga aqalkeega u soo dhacay baa la yidhi. markaasuu arkay haweenay iska tukanaysa oo aan in yarna aan cabsanayn, ma cabsanayso. way maqashaa shanqadha inuu tuuga aqalka u soo dhacay, way arkaysaa, laakiin ma dhaqaaqin. meesheediina kamay dhaqaaqin, salaadiina kamay bixin. waxaa la yidhi wixii aqalka alaab u taallay, alaabba umay ooline, wixii yaallay markuu urursadu yidhi bax, iridii uu ka soo galay baa ku noqotay maaragtaana gidaar bay ku noqotay, derbi. markaasuu yaabay, wuu soo noqday. haddana wuxuu yihi halkeed ka soo gashay, halkaad ka soo gashay maan albaabka uu furan yahay uu arkaa. mar ali markuu albaabka soo gaarana wuxuu arkaa albaabka u xidhan, derbigu madaxa ku dhiftaa, gidaar. markaasuu yaabay. haddana uu soo noqdo daragshinkii uu dib u qaatay, daragsiyoonkii. markaasuu halkiibu isleeyahay wata halkaad ka soo gashay furanna ka bax. markuu gaarana meesha u xidhan tahayba. alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa layidhi, ilaa salaadda ay ka baxaysa iyadii uu sugay. wuxuu yidhi kolka salaaddii ka baxday buu ku yidhi wixii aan kaa qaato waa aniga kuu dhigay, albaabkii halkuu iga xigay ii sheeg buu ka yidhi. 40ka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qisadaas. markaasay ku tiri anigu albaabka ma xidhin, albaabka xagga sare laga xidhaa bay tiri, xagga sare. ma doonaysaa in albaabka lagaa furo? haa, toobadkeen bay ku tiri. ballanna qaad ilahay inaad u noqonayso, oo dembi dambe aad ku dhacayn, oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad. waa iga ballan buuri, maanta laga bilaaba inaan toobad keeno. hal mar keliya markuu sidaa yidhi tiri albaabkii waa kaasa ka bax. albaabkii buu ka baxay, way sujuudo waxay tidhi yaa rabbi anigu waa kaa qoloftiisii waa soo jeediyey, qalbigiisa adigaa ku shaqal, ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tidhi. sidiibu ku toobad keenay. ilaahay haddaad amarkiisa aad ilaalisid, halum qisaska qur-aanka aynugu filanba. ibraahim calayhi salaam dab intoo loo shiday baa lagu turay manjaniiq, baa lagu turay manjaniiq min makaanin baciid. marka ibraahim markuu sii dhacayayna malaa'igtoo dhan baa u timiday. markaas ugu dambayntii jibriil baa yimid calayhi salaam. alaka xaaji ya ibraahim buu ka yidhi ama ilayka falaa wa ama ila allahi fabalaa. yaa jibriil ma adiga may maanta adiga waxba kaagama baahni, laakiin rabbiga waan u baahanahay buu yidhi, kama maarma ilaahay. ibn cabaas wuxuu yidhi hadalkii u dambeeyey ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray u lahaa xasbi allah wa nicma alwakiil, kaafiyahaygu waa ayo waa allah weeyaan. ilaahay waa qaadir calaa kulli shay. ilaahay awood wuxuu u lahaa dabka inuu biyo ku baktiyo, awood wuxuu ilaahay u lahaa inuu dabka dabeed ku kala kaxeeyo, laakiin ilaahay sunnada ma isticmaaline, qudradduu ilaahay isticmaalayo wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. dabkoo holcaya oo sifadiisii aanan laga zulin ayaa ilaahay amar wuxuu ku riduu yidhi ibraahim dushiisa waxaad u ahaataa qabo u haw bas, iyo nabadgelyo iyo qabo. siduu doona yeela waa ilaahay. dabkii uu holcayaa sifadiisii uu leeyahay, laakiin ibraahim calayhi salaam xaaddi jirkiisa ku taalla ma gubi karaayo. bal nolosha adduunyada ugu fiican ibraahim waxay soo martay baa la yidhi 40kii maalmooduu dabka ku dhex jiray. wa ibraahim calayhi salaam qisaskiisa qur-aanka way ka buuxaan, qisas kullaha iimaaniya, laakiin ayaa ku cibro qaadanaya maanta.
islaantiisii haajara iyo ininkiisa ismaaciil afka intuu ku qaatay buu la yimid 4 buuro dhexdood min masjid al-aqsa ka soo qaaday qudus ilaa wuxuu keenay ardul xijaaz dhul kulul oo biyo iyo baad aan lahayn oo roobku ku yar yahay oo dadna ay ku noolayn oo xataa geel la hadhaystay aanan lahayn halkaa intuu ibraahim dhigay haajara iyo ismaaciil ayaa lagu yidhi ka noqo iskaga noqo lagu yidhi oo amar haajara dhaadhac oo dhaadhacday ilmahaaga qabso way qabsatay biyo intanaan kuu hayaayo hoo la dhaadhac way la dhaadhacday baad intanaan kuu sidaaya qabso way qabsatay markaa buu yidhi salaama waa maka halkay maka ku taallo weeyaan dadka xajiyey baa yaqaanay waraysta kulaylka iyo rafaadka iyadoo zamankeenan maanta nafaqyo iyo wadooyin iyo wax walba lagu diyaariyo biyo qabow haddana maalinta xujaydu ay yimaadaan waxay yimaadaan iyagoo daallan bay yimaadeen oo madoobaaday meeshaasoo asbaabaan lahayn ka warrama berigaas halkaasuu ibraahim haajara kaga dhaqaaqay markaasi haajara ka daba hadashay ku tiri ibraahim ma amar ilaahayba markaasuu yihi haa ilaahay nima dayacaya iska socda ku tiri ilaahay nama dayacay haweenayda iimaankeega ka warrama kalsoonida rabbigeeda ay ku qabtay eega xaaladda maanta muslimiinta caalamka ku nool ku qiyaas asbaabta lagu noolaado agteeda ma taallo baadiye biyo ma haysato wehel ma haysato meeshu waa waadi catash ree yamaneed markay badaacadooda ay shaam u doonanayaan habeen inay maraan mooyaane maalin ma mari karaan baa layidhi hadday maalin ay cileedda ugu soo baxdo oon bay u dhimanayaan halkaas ayaa nebi ibraahim lagu yidhi haajara iyo ismaaciil halkaa kaga dhaqaaq deedna adiguna qudus ku noqo yaa ilaalinaya markaa yaa ilaalinaya yaa arsaaqaya yaa darayada ka dhabaaya ilaahay baa ka dhabaaya laakiin waa usrad qalbigooga macrifada ilaahay baa degtay halka innaka maanta zamankeena muslimiinta tawxiidku carabka uu noo dul yaallo usradaas iimaanka iyo tawxiidku qalbigoogu dega qalbigooga idan laa yudayicana ibraahim marba haddii amar ilaahay aad nagu dhigto nagaga noqotay nama dayacayo socobay ku tiri isagaa nagu filan buurta gadaasheedu markuu ibraahim istaagay uu gartay xataa hadduu soo daymoodan inuusan arkaynin ducaduu ku duceeyey waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxarami rabbanaa liyuqiimu الsalaa fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun ducadiisa waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay adduunye kama bilaabin innaga markaan ducaysanayna ducadeenna waxaan ka bilaabnaa adduunyada ilaahu lacag isii ilaahu sanadkan ciyaalka imtixaankay marayaan ha baasaan adduunyada in ilaahay la weydiista way fiican tahay laakiin hidaayadda horeysa diintaa la horeysiiyaa ibraahim calayhi salaam uu u jeedaa meesha uu reerkiisa dhigay inay biyo la-aan tahay inay baad la-aan tahay inay wehel aynay ku haysan uu arkayaa laakiin ducada waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay rabbanaa liyuqiimu salaa wuxuu garanayaa hadday reerkaasi salaada ay leeyihiin hadday diin leeyihiin hadday ilaahay xidhiirkiisa leeyihiin adduunyadana way helayaan nolosha qofka muslimku diin bay ka bilaabantaa adduunya kama bilaabanto ninba ayaa nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yidhi yaa rasuul allah rabbigay markaan baryaaya maxaan idhahdaa ii sheeg qul allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii waata ducada ambiyadu qul waxaad tidhahdaa allaahumma allahayow ikfir lii ilaahow dembigayga dhaaf warxamnii ilaahow ii naxariiso wahdinii ilaahow ii hanuuni warzuqnii ilaahow ii arsaaq arsaaqadda waxaa ciriiriga ka gelinaya maanta ee maciishada nagu adkeeyey waa macaasida badan weeyaan lidaalika nebigu wuxuu u tilmaamayaa ummadda dariiqadda saxda lagu ducayso waa dariiqadee awal waa maxay ilaahay dembi dhaaf weydiiso waayo dembigaagan faraha badan leh ayaa nolosha ciriiri kaa gelinaya
waxaa nolosheenu maanta bilaa barako la noqotay tijaaradii way badanaysaa tacliintii way badanaysaa wax walba way badanayaan maciishadiina way sii adkaanaysaa dhakhtaradii way badanayaan hosbitaaladii way badanayaan farmasiyadii way badanayaan daawadii way badanaysaa bukaankii muu yaraaday mise uu batay bari sheega hosbitaaladii way bateen dokteeradiina way bateen daawadiina way badatay dadkii bukay ma yaraaday mise way sii bateen tacliintii mutacalimiintii way bateen laakiin noloshii maciiri bay sii galaysaa mise fudayd bay noqonaysaa bal iga jawaab cidhiidhi adduunyadii way badanaysaa dhismihii uu badanayaa ganacsigii uu biirayaa tujaartii way badanayaa wax walba way badanayaa laakiin maciishadii way sii adkaanaysaa barakadii bay naga maqan maxaa nolosha maciishada maxaa cidhiidhiga gelinaya waa kasratu dunuub dunuubtaa badatay macaasidii baa badatay khafladii baa badatay diin la-aantii baa badanaysa fadhigii masaajida ayaa yaraatay ictikaafkii masjidkaa yaraaday majaalis alghafla badatay majaalis alghafla deedna markaasa noloshii waxay noqotay cidhiidhi lidalika nabiyadu calayhim asalaatu watasliimaat meeshay ducada ka abbaarayaan u fiirsada rabbana lan yuqiimu salaa fajcal afidata min annaas warzuqhum min athamaraat midho la cuna ku arsaaq midhaha u dambaysiye waa arsaaqadii diintii u horreysiiyey cibaadadiibuu ku xojisiiyey in ummadda ilaahay aqalkiisaas waa beytka ilaahay muxaramka ay qulubta muslimiinta ilaahay u soo jeediyena uu ku labeeyey ducadii midho la cuna ilahu ku arsaaq buu yidhi xataa beera ma odhan midho la cuna ilahu ku arsaaq asbaabtii nolosha markaa ilaahay ka siiyey haajara maa u zamzam baa loo soo saaray safar reer yamaneedaa soo waacday reerahoogii bay soo rareen way la degeen makkata almukarama waxay noqotay magaalo ganacsiga shaam iyo yaman u dhaxaysa oo reer shaam markay imanayaan badeecadda shaam laga keena makaa la dhigaa badeecadda reer yamaneed markay badeecadda doonayaanna maka yimaadaana makay ka qaataan halkaa markay magaaladii maka ay marayso tuulo biyihii ay dhex yaallaan oo biyaha dhex yaalla tuulada baayac musharkii baa ka socda ayaa lagu yidhi jibriil baa u tegay ibraahim oo waxaa lagu yidhi rabbigaa wuxuu ku amrayaa islaantii haajare iyo ilmaheygii ismaaciil ee maka dhigtay inaad ka war doontood soo aragtaa lagu amraya orada u teg soo arag buurtii uu gadaasheeda ibraahim markii uu ka ducaynayay markuu buurtii iskor taagay muxuu arkaa tuulo waa meeshuu kaga tegay islaaniya ilmo yar waxay noqotay hayjad biyo leh baad leh magaalo ah oo dhisan baayac mushtarkiina ka dhex socda jibriil baa ku yidhi yaa ibraahim rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad haajariya ismaaciil isha aad ka soo aragta bas faraskaagana aanad ka daadegin kadibna waxaad ku noqonaysaa qudus yaa jibriil xaaskaygii weeyaan waa ilmahaygii ismaaciil inaan arkaan rabaa un la fadhiisto un warayste may inaad faraskaaga ka degto amar uma haysati waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faatamahun ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay dadka ilaahay jecel yahay adduunka dusheeda waa la ikhtibaara waa la imtixaamaa sidee lagu garan hadduu qofka haddaan la imtixaamin sidee iimaankaaga lagu garan marka qofka muslimka ee muuminka ilaahay xaggiisa imtixaan loogaga keenana waa marka la doonayo qofku qalbigiisu ilahay inuu ku xidhmo ha argagixin ha quusan waa marka la doonayo in iimaankaagu adkaado in yaqiintaadu aad tidhaahdid ilaahay baan haystaa waxba iga xuman maayaan yaan haysanaa allah baan haysanaa xaalad adag markii qofka muuminka ku timaado waxaa la doonaya inuu qofku yidhaahdo ilaahay baa macayga ibraahim calayhi salaam intaasoo imtixaano fara badan ayuu maray waxaa ka mid a imtixaankiisii u dambeeyey waxaa ka mid ah imtixaanadiisii ilmaha ismaaciil uu 9 jirka uu ku dhalay ayaa markii dambe lagu yidhi qaado
sida neefka xoolaha loo bireeyo u soo biree magaaladii buu soo galay ibraahim ismaaciil aawe ismaaciil waa kan namari aabo xaggee saaxiibkii baa kula kulansiinaya namari buu ka yidhi uu qaaday halka mine ee xujaydu dhagaxa ay ku tuuraan ee dhagax tuurka halkaa markay marayaan ayuu arkay ismaaciil oo didsan markaasuu ku yidhi aabba maxaad arkaysaa aabba waxaan u jeedaa oon arkayaa nin baa igu leh waa lagu gawrac odagu ku gawracaya ay ka baxso markaasuu yidhi aabba waa ibliis weyna dhagaxa ku tuur buu ka yidhi waa halka xujaydu ay dhagaxa ku tuuraan ramya aljimaar halkaa markay marayaan buu la hadlo wuxuu ku yidhi falama balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin halkaa markay marayaan buu ku yidhi aabbo waxaan ku manaamay anigoo ku biraynaye adiga bal maxay kula tood odhan lahayd buu ka yidhi markaasuu yidhi aabbo amarka ilaahay buuxi buu ka yidhi iyo fuli anigana waxaad arki doontaa inaan ahay adkayste sabir badan inaan ahay baad arki doontaa oo saabiriinta ka mid ilmaha ibraahim kuma dhalin 20 jir bal ismaaciil waxa uu ku dhalay 9 jir odayadu markay ilmaha 50 jir ku dhalaan baa la yiraahdaa war ilmahan waa ka dhigile ma 50 jir buu ku dhalay soo ma darki ilmaha odaygu jecel yahay gacanta uu haysto ayaa lagu dacay war ma 50 jir buu ku dhalay kan waa ka sii dayn leh igu markuu 50 jir ilaa inta ka horeysa ilaahay u baduuna siinin ee 50 markuu maray ilaahay ilma uu siiyo ilmaha ka 20 jirka ku dhalay waa uga duwan yahay maxaad u malaynaysaa nabi 9 jir ilaahay ilmaha uu ku siiyay oo haddana la leeyahay sida neefka xoolaha loo bireeyo ilmahaaga u soo biree waxa cajiiba ilmahan aabihii kuma akbar daarin laba qiso cajiiba quraanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim basadii nabi nuux inankiisa markii ummadiisa la halaagayay waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nabi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta ma ooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'awi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala sa'awi xataa aabba ma odhan baa la yidhi ilma aabihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegaya iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooya ku yeedhana hooye macaanay dheh hee hooye macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad how tirahdid keliya how ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaadu ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii uu iska diido wuxuu yidhi buurtaasan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan hirarkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo birayo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste
labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahan waa labada hooyo ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaya warkiisa ha maqline or danahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaas uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsameyn ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaaggiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidaalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaamay gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyaddii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar qalbigaas waa meesha ilaahay addoonka uu ka eego weeyaan ilaahay cadamadiisa ilaahay maxabadiisa ilaahay jacayladiisa ilaahay weynidiisa mooyaane qalbigaa jacaylo kale in lagu arko lama ogolo dadku inay ilaahay ku xidhmaan oo dadku diintan ilaahay xadhigga ilaahay qabsadaan waa muhiimadda ilaahay nebiyada u soo diray waa muhiimadda nebigeenna loo soo saaray calayh isalaatu wasalaam dadku ilaahay ku xidhmaan adeerkii abaa aalib baa u yeedhay rasuulka maalin markaa nebiga quraysh abu aalibka quraysh baa la fadhida markaasuu loo yeedhay rasuulka ilaahay u yimiday abaa aalib oo sakaraada markaa wuxuu ihi maxamed oo adeeradaa baa ila fadhiya quraysh akaabiru quraysh baa ila fadhida aday kaa cabanayaan maanta maxay igaga cabanayaan ilaahyadoodii baad ka ceebaysay odayadoodii caqliga badnaana waxaad ku sheegtay inay yihiin dad maangaab oo aan waxba fahmayn aabbayaashoodii dhintayna helanaar baad ku sheegtay midnimadoodiina waad kala geynaysaa intaasoo arrimood iyo wixii waxyaabo kaleoo la mida lagaaga cabanay adiga bal maxaad ka sheegeen buuhi bal sheeg wuxuu idhi anigu adeeraday wax dhibaataa iyaka aan ka sheeganaya ma jirto laakiin iyakaa khayr la rabaa buuhi anigu bas khayrkaad la rabto waa maxay kalimatan yaquuluunahaa kelmaduma ii odhanayaan bas hadday kelmaddaa yidhaahdeen carab oo dhanna boqorray u noqonayaan cajam oo dhanna jizyadda ka qaadayaan buuhi markaasu maxaa tidhi kelmadunba lahayay dhahada bas haddaa kelmaddaa tidhahdaa qurayshay carab oo dhanna ininkaa boqorro u noqonaya
cajam oo dhan ninka jizyada ka qaadaya marka Abi Jahl baa sara kacoo yiri waylaka 10 ma kalmad iyaan waxa soo mulkay ku helaya ha 10 jeer baa ku celinay kalmada ay shab buu marka Abu Nabigu ku yiri la ilaha illa Allah hada wadiban isani marka sayyidadan aj'ala al-alihata ilahan wahida in hada la shay'un ujab bilahyadi intii la akay 360 ilaah on haysanun caabudaynay ayaa baahideedii daboolile Muhammad ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda arigaas waa arin la yaab leh Muhammad diintiisa ku ka tagaya ma ahine inaga dareeriye bay yiraahdeen meesha ilaahadeena cibaadadan caabudaynayna ha ku sabiro aan iska adkaysanay naga mariyo bay yiraahdeen ayu Abu Talib baa nabiga ku yiri hadal xun baa kuma doonay waa maxay ma inta bay ka didayaan ha inta bay diidan yihiin adeer adigu kelmadda ay dhabiyo qiyaamaha ku marxaate kacay sakaraadki baa haya marka Abu Talib kelmadda uu leeyahay bas kelmaddu qiimo badana ku soo noqday Abu Talib Abu Jahl baa soo noqday marka Abu Nabigu soo ziyaartay Abu Talib wuxuu arkay Abu Jahl oo ag fadhiya marka Abu Nabigu ag fadhiistay wuxuu ku yiri ammi kalimatan uhaju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah malika qiyamah kugu doodi doonaaye kalmada uu aniga mari maqashi uu kaydi la ilaha illa Allah maqashi qiyamah ku shafaa'ad qaadi markaas Abu Jahl buu eegay Abu Jahl baa yiri marka أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب ما أنت كتجسا ومحمد بوركي سقانيسا أبو طالب مركا هو مسلم مركا أبو هذا النبي يقول له الله كيري يا عمي كلمة يحاج لك بها عند الله مركا لي كلمة أنا جاي ما غشيو إيده ما لقى قيامة كوشة في عاد قاضية مركا سوء مسلم أبو طالب هذا أبو جهل بسوج يديو كيري يا أبا طالب مدينة عبد المطلب بتكتجسا ومحمد وركي سقانيسا هذا مركا ممرلة بتكو عليي مركا قدام بس أبو طالب حجري على ملة عبد المطلب بنقول من محمد ويداب وكيري حنقول من ملة عبد المطلب بنقول من دينتي أبا ياشي كتجي معي محمد وأنا جالس كيدا مركا صار نفتي سكت عليه بالله مركا أبو النبي عليه الصلاة والسلام سقول المين يكعي هلكا واكي إلهي القرآن كسو دجيه يري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال ذلك جعل تمسوا هذين يسد كي إلهي أضونا سياسوا هذين أيام مركب رسولك يري يا عمي لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك يا عمي أذيرك يوم هذه ما أنت أدوى أنا شهادة ويدي وذنات كلمة مرئي مقاسيسد هذا اسكدي دي أنا كان حق بعد يقول هذا هاي والد كي بعد يتعاي وحن أنا يقول كنت ذاليا إن إلهي دم دافع عن كوي ديو أنت اللي يري بكهر برقاس الرسول كانوا بلابين أدعي أديركي وقال لما كنت أنت قولي منا أبو طالب صحابتي وين مغلى نبيكو أديركي بودعينا يا يكون أبيا صوت بلابين مركا إنه أدعيا وإلهي دم دافع نحرس ويديا مرقاس إلهي كددوا يري ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما يهان النبي محمد يا مؤمنين ترعصا إلى الكوكية قرابدو دي كوي قال لماذا كنت انتي كوكي وعدا تكذب إن أهل النار أيهين إلى إله الدم دافع ويديان ودعيان أرنتاس أرن بنان ما هنا كجوغا بان نبقى لقولي مركز كلمة داس تتكوين كلمة دا إرادة أي النبي قلبي سكوين عليه الصلاة والسلام إمام مالك رحمة الله عليه أي مالك وحوار كين اللي يرى وشارب الخمر يعني وسكرامي مركا لأن مركو السكرامي يركي يرى سكرتي باكسين إيسا الله 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 شيخي يابي والسكرام اسم الجلالة عجيب إمام الديسي انتو صوق هذي أيو صوص صعبي باليرو بريركي خمري بعضك كقبيي وعسري بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكن وكسر بحي ما تكمل سحدي ذا لأن مرقاسو كم صحيح بالإنساس وكم صحيح لأن مرقاسو يقول شيخ
وسكراسنه يقتك وسكراسنه اسك كيدا مركو كبيي بو اسكغا تغي habeenkiina uu duceeyay baa leeyahay ilaahu qalbigiisa adaa ya soo haday imaam maalik rahmatullahi alayhi habeenkii markuu jibsaday ayaa manaan baa lagu yiri sida anaka daraadaya adigu afkiisa dareerkii khamriga aad uga biisay ayaan anakuna adiga daraada qalbigiisa khamriga uga biinay baa ilaahay ka yiri خلاص صلاه المغرب صلاه الفجر imaam maalik markuu salaadii tujiyo dadka darsigii buu bilaabay wuxuu ka dhaxarkay yarkii yaraayo darsigii dhex fadhiya markaas ma isagii baa misma markaas uu yeeray markuu darsigii dhameeyo wuxuu yarkii ma tihid haawa anigi say wuxuu jiraan bal sheeg adigan saajidkii ilaahay wuxuu xaaladayda xalay toole kii kaaga waramay baan anigana soo adeeyay buu ka yidhi xaaladayda kii xalay toole kaaga waramay adiga baan anigana soo adeeyay naxariis noqotaa laga rabaa qofka muslimka waa raxmad dadka inaan u naxariisano kam maanta min almuslimiin ayaa ilaahay ka go-an oo xariirkii ilaahay ka go-an muslimiin iska daa salaada kuwa tukanaya aqlada ku tukanaya ayuu nabigu waciid u digay wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi nafta muxamed kay gacantiisa ku jirta ayaa ku dhaartee waxaan ku hamiyey buu rasuulku inaan iraado xabay soo gura dab inshida hebelo salaada aqim hebelo salaada ummadda ka bixi kuwa aqalada ku tukanaya intoon u weydaarto inaan aqalada ku soo gubo ayaa ku hamiyey buu rasuulku yidhi ku saliya rasuulkeen waa nabigii naxariista badnaa waa nabigii ilaahay uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan للعالمين ونبي أركي حرق بو أركي مسكيتي قد حيرا مركا بو أركي النبي وحرقنا يا لبوي وعلى الحرقنا يا حري زينب حرتي محي قدكتا صلاة الليل كمركا كدا شيء قبستا وقوي النبي وحرقي حري أعماشا انت اذكر إنسان وقبتها وأعماشا صنها خيرك إلهي خيرك ملائكته أي قريان كما الدعلان بو النبي يقولي إلا إنكم خير كسميتي سكد على مويا هذا قال نشاط كاترين تكلموا النبي يري هذا قال دلتي ناس كسحر برسولك يري نحرستي سائق أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها هل كي صلاة الليل كنت كنيسز أي النبي يقول صور برقدي يدو فردة برقدي وسقالك الصبح نمو أما طبنكي هل كي صلاة الليل كنت بلوضي مركز النبي يقول يا جويرية مالك كاجا تيبا فدلا هالك هذه كاجا تكتبها فدي النبي الله ومن حل صلاة الليل قال كنت قبل على صلاة إلى برقدي وعيوف فدلا مروى صلاة مروى قرآن مروى ذكر مروى مناجاة مروى الله بري وياه إنك تمر كأنه ما أنت ما شاء الله مطبخ الصباح دي أي قشة كذا على قرمة كصباح لا عشاء كبح maalinta dharka meerayaan haweenkeenu hudheer ba aqalka lagu iibinayaan mooyaane wax kale oran maysa dharka la meeray badidiisa ashyaabana awqaadeena ku bixinayna iyo kuna a'maal ba waqtiga ku bixinayna awqaad a'maal markaa nabigu ka naxay say cibaadada isku taxallujinayso markuu arkay ayuu nabigu u dabciyo wuxuu ku yiri adiga dabada afar kalmadood oo saddex jeer ku celiyay ayaa wixii maantoo dhan khayr aad samaynaysay haddii miisaanka lala dhigi lahaa kafad u dhigmi lahayd buu nabigu ka yidhi waa maxay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaatihi saddexda afartaa kalmadood oo saddex jeer aan idhaahdo buu rasuulku yidhi ayaa wixii maantoo dhan khayr aad samaynaysay haddii miisaanka lala dhigi lahaa u dhigmi lahayd buu nabigu ka yidhi nabiga naxariista badan calayhi salaatu wasalaam ee naxariista badnaa ayaa dhaaranaya oo leh wallaahi waxaan ku hamiyey buu nabigu leeyahay kuwa aqalada ku dhex tukanaya inaan dab soo qabadsiiyaan doonay buu rasuulku yidhi kaan tukanayna markaa ka warrama war dalkeenna maanta inta tukatay intaa tukanaya maa badan halka jawaaba ya inta tukan baa badan
بعد ويتتولا صومر تولا بل كنا كتالا قبل كان سلل لحن أوكليا أيا صلاة فجر لتو كتجمع سداد مسلح بها يعني واقي مركو بريان وريسنا تولدي وعالي تولد اللح بغلو قيس بكنول سداد نبا صلاة الصبح كسوتو كتي نقصان دينين ما انت ويت على مال والبا لكن دين تعد النقصان ده كب حينيسي ايا ما انت ومده كم قلمات شغل الدنيا ده دالك قال انه شيء مايو سبب الى لها تجارته تعليمته سبب الى لها حنونك سبب يولي هي قفل بطريقه الله مروليه سبب كستي وعلي waxaan doonayna asbaab ilaahay u yeelay laakiin asbaabta umadu ay ku hanuunaysay maanta umadu way ilowday مساجد جمعه لبوحه وآن لو تكنايو أيا نن قروح بدن أو در آذو قروح بدن ستة أيا صفقه ركوتو كذي وكسوا كعي علماء دي بقوي مدي وحبودك تأوش يا جاي شيخ إمام كان ميكروفون قاتو حيري نيكا ولالكن يندل تاجن وحولي جمع مسلمين تو أولاد إلهي هيوي ديان بولي يقول دعي يقولي والله دعي ما شاء الله هذا جمعيه كانوا سوا كعي دعادي بو شيكتي والله دعي هذا جمعي سدعاد بو سوكعي دعادي بو شيكتي والله دعي نين علماء كمدا فكري او ياري سو فريسبو لو وحور امس دمر غورستي بو كيدي markaas ilmo buu guursanba balka warama ninkaas saxba ducadiisaasi ma soconaysa ducadaasi majmacaadan ee awliyadii culimada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay bal sheeg khilaaf sunna sunnadii ilaahiyadii buu khilaafsan yahay dariiqadii loo maraya saxda ma marin marka uu soo kacay hay-adiisa quruxdiisa waxaa la moodayaa nin afar dumara leh oo weli u badna aan ku tixin laakiin markuu yidhi maba guursanba ayaa la yidhi war nambar baa kaa qaldane horta soo guurso horta nambarkaas ka soo sax dee nambarkaa ilaahay bari ayib haddana jamcihii kaluu soo kacay ninkii xaaladiisa ogaaya xawaasha ka qaadayba ayaa yidhi war naga fadhiis waryaa intuu imanba meeshii buu fadhiisiiyey culamadii baa ku tiri war waa ninkii ducada doonaya khayrka badnaa iyo ducadoonkii maxaad u fadhiisisay baa laga yidhi markaasuu yidhi war nambar baa ka qadlan buu yidhi ninka maskaxdu wax ka yar qabaa si aad ku garatayoo dee maba guursan buu yidhi iminka kulligeen dadka maanta muslimiintu in muslimiintu acaza annaas dadka adduunyada ugu sharaf badan inay noqdaan ma jecel lahay mise ma jeclin bal ninkii jeclow gacanta taag laakiin dariiqii muslimku casiis ku noqonayay inaan qaadno diyaar ma u nahay uma nihin bisada iyo jiirka maxaa ka dhexeeya is-aragunbaa ka dhexeeya soo ma jiirkii baa isku yimiday way tashadeen waxay dhahdeen habeen walba bisadii 10 20 waa lana dhameeyey seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yidhi markaa ra'yi fiican buu soo jeediyo wuxuu yidhi waa mithaal yani koortan awrta la suro soo ma taqaanaan jaras geela la suro ha la qaado oo bisada qoorteeda la soo suro buu yidhi si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dadna looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirkii sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu yidhi soo saamaynde nebiga ku salliya dad muslimiinta oo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheenna ka muuqato inay muslimiintu acaza annaas inay noqdaan waan jecel lahay laakiin marka la gaadho diinta dadaalkeegii nin walba geerka dambe u gashanaya markiiba war waxba geerka dambe ha gashane geerka hore gasho yaa u diyaar geerka hore inuu geliyo insha allah dhahada allah inaga farxiyo waxay noo ballana diinta dadaalkeega inaan waqti ku bixinno tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan wa asudda faqraka
tafaraq licibaadati xadiis alqudsi fi tafsir ibn kahiir buu ku sheegay fi sharxi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ilaahay baa ku le tafaraq licibaadatii war taacadayda cibaadadayda diintayda wakti u samey baa ilahay ku leey bini aadanow haddaad diinta wakti u samaysa maxaad helaysaa markaa amlau sadraka hinan baa ilaahay yidhi laabtaan aniguna kaaga buuxin baa ilaahay yidhi hodan halkana laga noqdo hani hina nafsi baan ku siin weeyaan baahidaadaan ku dabooli baa ilaahay ku leeyahay wa asudda fakraka albaabada fakriga o dhan anaa kaa daboolaya baa ilahay waan kaa xidhaya wailaa tafcal haddaad cibaadadayda iyo daacadayda iyo diintayda aad wakti siini weyda baa ilaahay ku leeyahay baahidaadana kaa dabooli mayno gacantaadana mashquul baan ka dhiganaa baa ilaahay yidhi mala'tu yadaka shuglan walam asudda fakraka 24 saaca mashquul baan kaa dhigi baa ilaahay kaa yidhi fakrigana kaa xidhi mayno waa laba cuquubo ummadda ku dhacday maanta kay faqiirkee waxba haysan markay jamaacaddu u tagtay tiraada ilaahay dartii noo raac wuxuu leeyahay nima haleelayo waxba ma haysidbe mashquul baan ahay buu ku odhan waxba maba haysidba hadda maqaayad buu fadhiyaa duhurkiibuu qaab u fadhiista qaab baabuurta dariiqa la eryanaya buu kala mid saa u eegaya bbcduu geynayaa adeecado dad waalwaalan ay leeyihiin oo baalkan maanta laga soo saarayna kolba mid buu gashanayaa waxa caalamka ka dhacay uu la socdaa aakhiradiisina war uma hayo markay jamaacaddu u tagtay tiraadana masjidka noo raac in yar ilaahay hadalkiisa nala dhegayso mashquul baan ahoo nima haleelayo maxaa mashquul ku tahay waxaad mashquul ku tahay cuquba kugu dhacda mashquuliyad la yidhahdo kii maalqabeenka ahaana ee haystay 50 sano ama 100 sano hadduu hurdo wuxuu cuni lahaa isagoo baanka ay ugu jirto haddana faqri buu ka baqayaa ma dhacdo isagoo 50 sano ama 100 sano quudkiisa ilaahay meel uu saaro haysta haddaad tiraado ilaahay dartii u bax oo masjidkan wax gasho oo madrasadan wax gasho oo macallin qur'aan maaragtana nafaqadiisa naga bixi haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay yo waxba ma haystaba isagana waxaa ku dhacay cuquubadee walam asudda fakraka albaabada fakriga kaa xidhi mayna baa ilaahay yidhi haddaa diintan iyo dacwadda iyo cilmiga iyo masaajidda sidii ummadda loogu soo xidhi lahaa aad waktigaaga u bixini weydo labadaa cuquuba ku dhacaysa qofka mashquul 24 saaca mashquul baa laga dhigi 24 saacana waa kii baahan labadaa cuquuba ilaahay inuu naga fayda ma doonaysaan ha dhahada allah inuu ziyaadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo qof walba halkan fadhiya kurbada saaran ilaahu adiga oga halku kurbaysanya kurbada ilaahu ka qaad dhalinyarada wax baranaysana ilaahu tacliintooda ilaahu barakee culimmadana ilaahu cilmigooga cilmi naafic ilaahu ka yeel dalkeennan dowladeenna dadkeenna shacabkeenna ilaahu diinta ku wadanaya ilaahu ka yeel ilaahu kuwa masaajidda camar ilaahu naga yeel kuwa diinta kor u qaada ilaahu naga yeel wixii dhib nagula soo maqana dhibta gudahooga ilaahu ku celi wixii khayra noo soo wadana khayrka ilaahu ugu kaalmee muslimiinta adduunka meel kastay joogaan ilaahu midnimadooda iyo muwaafaqadooda ilaahu soo celi hidaayad muslimiinta ilaahu toobad iyo takyiir alacmaal ku galladayso gaaladana ilaahu soo hadee gaalada intii hidaayadda aad ugu tala gasha adaagoga ilaahu soo hadee dadkeenna wixii dibadda joogan ee laka joogan ilaahu ku ilaali kuwa diintaada iyo dadaalka diinta daryeel ilaahu ka yeel allahuma inaa nasaluka xusna alkhaatima وشهادة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد